بسم الله والصلاة على أشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشير جلاد عصب دنبي أنا مختارة مش مدك سلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر برنامج عادي أدوي ما تسين دتك شير كي سبسكرايب كسمية إن ما شاء الله حكارني تدوب قولية إن شنية طبعا كان إن شاء الله هنا قاعدنا مركزي عن إن شاء الله مركا إن منطقة الصدى دي هي وقصة دبود عضي وهي كده عضي كينيا كده عضي waxaa jirtay gabadh markaa ninkeedii maraykan buu ku maqnaa markaa uu dacwoonaya carruur bay wada lahaayeen waxay lahaayeen 2 carruura markaa muddo markay soo socotay waad garanaysaa maraykanka dacwadiisa waxaa jira wax la yidhaaho sponsor qofka marka loo dacwoonayo markaa gabadhii dee waad garanaysaan maraykankana marka dacwadda la bilaabayo waxaa la sameeyaa qofka caafimaadkiisa la baadhaa marka caafimaadkii baa la baadhayey caafimaadkii markii la baadhayey waxaa la yidhi gabadhii ma dhoofi karto sababtoo ah gabadhii waxaa la yidhi waxay qabtaa cudurka aidiska mise HIV-ga marka ninkii kolleyba markuu joogay maraykanka waxaa maqli jiray waxay odhan jireen dadkan dee Kenya jooga waxay la socdaan mise dembi la sameeyaan dadka degan meesha ee Kenyaatiga ah marka waxaasuu maqli jiray weligii marka gabadhii wuxuu aaminay gabadhu inay dembi samaysay mise qof khalad ula seexatay oo cudurkii sababtu waxa ugu dhacay marka carruurtiisi uu doonayay inuu kaxaysto oo kaxayso carruurtii way bad qabaan baa la yidhi marka ayadu way u dhaartay waxay ku tiri anigu dembi kuma lihi waxan cudurkan iyo meeshuu iga yimina ma garanayo qofka kaliya ninkayga ahaana waa adigun baa kula seexan jiray cudurku ma garanay siduu igu dhacay marka uu rumaysan waayey wuxuu ka qaatay sheekadii wuxuu yidhi waa been wuxuun baa jira meeshii aad ogeed marka ninkoo asagaa soo kaxeeyey oo ka soo kaxeeyey dalkii Soomaaliya oo Kenya keenay marka waxba muu siin ayadoo sidii baroonaysa ku yidhi anigu shilina kuma siinay carruurtii inuu ka kaxaystay waxay ku tiri bal walaal dee cadownimada intaa leeg waa maxay adigaa familigayga keenay bal lacag sii aan dalkii ku noqdo at least wuu ka diiday wuxuu yidhi shilin kuma siinayo cudurkii adigaa waxaan sameynayay adigaa cudurka isku riday marka meeshii buu kaga dhaqaaqay gabadhii waxay haysato waxay quudato ma haysato kiradii wax iskaga bixiso ma haysato lacag aad dalkii ku noqoto ma haysato marka dhibtaas oo dhan baa haysatay iyo murugadaas oo dhan marka ninkii buu kaga dhaqaaqay meeshii gabadhii meel joogto ma jirto guriga degneed waa laga eeriyey markii dambe waxay samaysay garan weeday way iska baxday oo dee way iska tagtay markaas meel bal dibadda seexo dadkii macaawino weydiisanaysay qaar wax yaro siiya qaar waxba siinin marka markii dambe waxay gaadhay inay tagto meelaha ugu diiran magaalada marka meeshii ugu diiraneed oo kale ay tagtay waxay noqotay inay tagto meesha dee kalabyada ku yaalaan oo dibaddeeda iska seexato marka roob baa ku da'ayey qabow baa ku dhacayay marka gabadhii duray iyo wax walba ku dhaceen marka gabadhii ayadoo iska qufacayso meel iska jiifta oo TB oo kale inuu ku dhacay oo kale ah oo club iska jiifta dibaddiisii markaa nin baa u yimi oo la hadlayo Kenyaati ay ku yidhi maxaa kugu dhacay something markaasuu ku yidhi waxay tiri maxaad iga doonaysaa orod iga tag marka ninkii baa la hadlaya wuxuu ku yidhi anigu waxba kaama doonayo oo ku caawinayaa gabadha miskiinada tahay meeshaad jiifta wax doonay inaan mucaawino ku siiyo meesha inaad joogtid maaha dhakhtarna maryaa ku geeyey gabadhii way ka diiday markii dambe waxay tiri waayay waa iska sii raacday ninkii baa kaxeeyey gabadhii dhakhtarku doonayay geeyo cuntuu siiyey maryuu u soo iibiyey maryihii buu guri gasho markaa dhakhtarkii buu geeyey gabadhii wuu sheegtay wax ku tiri aniga AIDS baa haya cudurkaasaa igu dhacay marka ninkii uu kaxeeyey gabadhii dhakhtarkii buu geeyey wuxuu yidhi gabadha daweeya markaa dhiig iyo shaybaadh ayay ku sameeyeen markaa gabadhii ninkii wuxuu ku yidhi cudurkuma hayaba AIDSba kuuma dhicinba AIDSba ma lihid markaasay tiri ma rumaysanayo waa been waxanu markaa uu kaxeeyey dhakhtar kaluu geeyey dhakhtarkii kalena sidiiba ku soo celiyey markaa way rumaysan weydayoo kii saddexaad ayuu geeyey kii saddexaadna markuu geeyey waxaa lagu yidhi gabadhan AIDS waxna ma hayaana duri yar baa ku dhacay markaa durigana uu ka bixi doona dawooyinkana dee qaadato markaa gabadhii farxad bay u soo taagtay oo ilaahay bay u sujuuday waxay tiri ilaahayow adigaa mahad leh inaad iga badbaadisay dee cudurkan igu dhicin oo waxaan odhan sidaa dee arrinkan usaa u dhacay marka gabadhii iyo ninkii mudduu gabadhii hayay gabadhii markii dambe ku faraxday
ninkii aad iyo aad buu habi ku ahaa, nin fiican buu ahaayo, godow soo dhaweeyey oo gabadhii kaxeeyey oo meel walba geeyey. markaasay tiri dacwad baan bilaabayaayo looyar buu qabtay in adeerkii ah. horta gabadhii way isguursadeen, aroos baa u dhacay oo si wacan bay isugu guursadeen oo si xalaalo sharci isugu guursadeen. marka gabadhii dacwad bay bilaawday. marka ninka mid in adeerkii ahaa ayaa oo kenyaati ahaabaa looyar ahaa. looyar buu ahaa, dacwadii buu ka bilaabay meeshii. dacwadii markuu ka bilaabay dacwadii safaaraddii ingiriiska la dacwooday. nin baa ka yimid safaaraddii maraykanka oo fadhiyay meesha. marka dacwadii waa la dhegaystay. gabadhii waxaa la yidhi cudurkii ma hayo. safaaraddii way murantay, waxay tiri baaritaanka maad haysan, waraaqiisii way eegeen. markaas yidhahan dib dambe looga qaado, way ka qaadeen. marka way ogaadeen gabadhii inuu cudurkii yahay. markaasay yidhaheen khalad baa xaggeena ka dhacay, khaladkaasna dee waa ka xaal marinayna. marka gabadhii way tiri anigu carruurteedii baa doonaya lai soo celiyo, carruurteedii inaa lai soo celiyaa doonaya, wax ka intaasaan doonaya. marka waxaa lagu xukumay maxkamaddii waxaa lagu xukumay inay bixiso safaaraddii maraykanka inay bixiso lacag gaadhsa $2 milyan. 2 milyan oo dollar baa la siiyey. marka carruurteedii baa doonaya loo soo celiyo. marka ninkii baa yimi isagoo orday, gabadhii la hadlay, ku yidhi carruurtii wataa la soo celiyey, maxaa dhacay, sidan iga raaliho. markaasay ku tiri ma adigoo waxaas igu sameeyey, qof cadow ah ayaa waxaa lagu sameynin oo meel cidla lagaga tago oo cunto haysan oo shilin lacaga haysan. marka dembigaad samaysay dembi aad iyo aad u weyn weeye. anigu weligay kuma cafiyey, carruurteedana waa kaa qaadanaya, dembdamba kuma soo noqonaya, wejigaaga kama doonaya arko. ninkii dhowr jeer buu kusoo noqday, way ka diiday, waxay tiri igu soo noqoneen. marka carruurteediina way qaadatay oo ayadaa kaxaysatay oo korinaysay, ayada iyo ninkii kenyaatiga ahaa. oo dee maasha allah lacagna waa la siiyey, ilaa $2 milyanna way haysteen, nolol fiican bay ku noolaadeen. marka qisada gabadhaa soo martay qiso aad iyo aad u murugale weeye. dhibtaa qof soo maray dee adduunka mad cafi lahayd qofkii dembigaa kugu sameeyey. atleast ugu yaraan qofkii markaad ka tegaysid oo weliba xaaskaagii tahay, hadday xataa dembi ku dhacday mise ku dhicinba, mar walba inaad kaga tegtid weeye, si cadaalada iyo naxariis aad yeelatid oo qof cidla kaga tegin. marka anigu kolleyba ragga soomaalida sheegay markay xanaaqaan oo gabadhooda ku tuhmaan wax khalada ma hayne, seeflabood noqdaan oo markiiba kusoo boodaanoo isyirahaan maamulo dee eriyo waxba asiinin oo si xun u gal. sababta qof ninkaasoo kale hadda gabadha xabad buu ku dhuftay oo kale, xabaddaa ka sahlaneed oo gabadhi markiiba naftii baa meesha kaga bixi laheed oo waa dhiman lahayd. bas inuu kaga tegay meel cidlo ah, dal qurbo ah, waxba ka garanayn oo meesha cidlada kaga tegay. ilaahay baa usoo diray ninkaa oo dee beeneeyey wixii ku dhacay, cudurkiina kumuu dhicin, waxna kumay dhicin. marka danniga diintu way ka hadashay, waa khalad inaad qofka aad ka shakidid adigoo caddayn haynin oo waxba ku haynin. marka ilaahay baa gabadhaa ka badbaadiyey. marka insha allah ilaahay dee waxaanoo kale nama soo mariyo. marka kolleyba gabadha waxaa leeyahay hadda kenya ku nooshahay, nabad iyo farxad bay ku nooshahay, carruurteediina way korisay, carruur kalena way dhalatay. marka ninka kenyaatiga ahaana qolo walba cid walba waa bani aadama, waad ka helaysaa dad fiican iyo dad xum. hadda ninkaas soomaaliga haddaa qof loo sheegi lahaa qisadan, soomaalidoo dhan buu nici lahaa oo odhan lahaa soomaalidoo dhan waa sidaa, soomaalidoo dhan sidaa ma aha. laakiin ninkaa unbaa khaldanaa kenyaatiga, oo ninkaasna aad iyo aad buu fiicnaa kenyaatiga reer kenya ahaana. marka inaan asaga la yidhaaho reer kenyana way wada fiican yihiin dee ma dhici karto, kolleyba dad xumna way ku jiraan. marka xikmadda laga qaatay waa intaa. gabadha waxaa ku dhacayna waxa weeye imtixaan buu ahaa, imtixaanka ilaahay dadka uu soo mariyaa. ilaahay baa dee qur-aankiisa ku sheegay qof dadka waxaa leeyahay waxaa imtixaan baad ii soo diraynaayo, dhib baad tusayna sidaad u gartaan nicmadda aad ku jirtaan. wax walba oo aad kugu dhaca oo xumaan ah oo dhib ah aad soo martid, sidii doonaya noqdaba khayr bay noqonaysaa. ilaahay baa waxaa dhan imtixaanka lagu samaynaya sababta wuxuu doonaya ogaado, dadka kale ogaado. oo qofkee baa dee toobad keenaya, qofkii baa odhanaya alxamdulilaah, intaan weeye. marka insha allahna waana kaa shir jaraa'id. aad iyo aad baa u mahadsan yihiin dadkii sheerkii subscribe-ka sameeyey iyo comment-ka qoray. insha allah dee channelka waa channelkiinii. insha allah qisado kale oo dambena oo badanna waa diihaya oo waa idiin soo sheegi doonaa insha allah. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin.
waa mukhtaar waxaan ku leeyahay kulanti dambe iyo shir jaraa'id dambe oo mac salaama